mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxaha maafiyada Cape Town ayaa xabsiga laga sii daayay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga dhaqan celinta dalka Koonfur Afrika. Rashid Istaagi ayaa lagu xukumay 13 sano oo xarig ah. Xukunkaasi oo uu kala bar dhamaystay. Cape Town ayaa waxa ka jira kooxo badan oo maafiyoosa kuwaas oo qalalaasa ammaan oo weyn ka sameeyay magaalada si weyn uga ganacsada daroogada iyada oo dagaalo u dhaxeeya kooxahani ay galaafteen nafta dad badan oo reer Cape Town ah. Warka wanaagsan ayaa waxa uu yahay in Soomaalida oo si weyn dalkani loogu waxyeelayo ay ka badbaaday dhibaatada kooxahan maafiyada ah. Rashid ayaa inta xukunka uga harsan waxa uu ku dhameysanayaa banaanka isagoo lugta looga xiri doono aalad lagu la socon doono dhaqdhaqaaqiisa. Haddaba aaladan casriga ah oo Soomaaliya si weyn ugu baahan tahay gaar ahaan xilli nidaamka garsoorka Soomaaliya dib u habeyn lagu sameynayo muhiimna ay noqon doonto in dad badan oo dalka dhibaato badan ka geystay lagu hayo xabsi guri si dhaqan celin loogu sameeyo ayaan halkan ku sharaxaynaa qaabka uu u shaqeeyo. Waa aalad elektaroonig ah oo qofka lugta looga xirayo uusan iska furi karin. Waxa qofka loo xadeynayaa ama loo jaangoynayaa inta ay la eg tahay masaafada ay tahay inuu ku noolaado amaba ugu fog ee uu gaari karo, taasi oo haddii uu hal tallaabo oo dheeraad qaado ay aaladda sheegayso. Waxa ay aaladda sidoo kale sahlaysaa in la dhageysan karo wada sheekaysiga qof kasta oo la sameeyo qofkani, ama xitaa haddii uu wax maanka dooriyo uu isticmaalo ama faraha la galo waxyaabaha qarxa ama maarta. Waxaasi oo dhan waxa lagala soconayaa kombiyuutar lagu rakibay xabsiga, waxaana ka muuqanaya qariirada halka uu cagaha ku hayo isaga oo dadka oo dhan ka soo muuqanaya midabkiisa oo cas. Cabdinaasir Saxan Soxo, Somsad, Cape Town.